gabar jeceshahay oo been ay kaa tahay gawaabsi aad ka ibtid gabadhaas faraha ka qaad waxaad maanta adiga gabadhaan ku samaysa jiri walaashaada lagu sameynaa jacaylkan beenta aad ku sheegaysiin daaya anigu waa ka soo waxaa jiro waxyaalo badan oo dhib keenaayo waxaa ka mid ah hadda runtii dad badan oo waxaa arkay oo jacayl ku waashay oo jacayl dhibaayo oo la wareersan runaantii taas waxaan dhigi karaa aniga waa wax garab laisku siin waaye marka gabdhaha walaalaheena ani waxaan dhahayaa biliis anigoo codsigaas wata wiilasheena yaan loogu bixin jacaylka waayo jacayl waa wax aad iyo aad u foolxun marka waxaan ugu xun ninka si daacadnimo qalbiga gashta ruuxaan inuu jecel yahay ruuxaasan uusan jecleen waayo waxaa jira waxyaalo badan dhibaato keeni kara mid buundo iska soo tuuray horaana loo arkay mid isdaldalay horaana loo arkay marka gabdhaha kaligooda ma ahan mid istoogtay horaana loo arkay marka wiilasheena ayagana waxaan dhahayaa gabdhaha kaligooda ma lahan eeda wiilasheena ayagana waxaan leeyahay hablahayna Soomaaliyeed quruxda badan aadaabta leh akhlaaqda fiican inta fiicana ku jeeda waxaan leeyahay jacaylka yaa loogu bixin waa idin baryaa because sidoo kale gabdhaha ayagana gabdha isdaldalay gabdho waashay sidoo kale waxyaalo badan waa aragnay cid aragto waa aragtay dabcan haddaa been sheegayana cid walba waxay dhihi kartaa iyadoon comment taa soo qorin beenta waayo ama awoobkan been badana waa dhihi kartiin marka waxaan leeyahay jacaylka laftigiisa wuxuu ku yahay jacayl oo qurux badan muxuu noqonaa markii labada qof ay garab isiyaan markaas wuxuu noqonayaa jacayl qurux badan farxad leh wax walba leh marka waxaan dhihi lahaa aniga in been la isku sheego waa laga qurux badan yahay qof walba waxaan leeyahay haddaad isjeceshihiin si fiican isku jeceshihiin si fiican iyo si wanaagsan isku jeclaada isku wada wari dhammaantiis warka idin soo koobo qof walbo dumar ha ahaado gabar ha ahaado warragow dhalinyarteena weliba haddaad gabar jeceshahay oo been ay kaa tahay gawaabsi aad ka ibtid gabadhaas faraha ka qaad waxaad maanta adiga gabadhaan ku samaysa biri walaashaada lagu sameynaa hablaha Soomaaliyeed aniga waxaan leeyahay haddii aad wiil Soomaaliyeed aad jeceshahay oo been ay kaa tahay iska daa mid kala raadso oo si qurux badan oo dooqaaga haddii ood aadan jecleenna faraha ka qaad haddaad jeceshahayna jecelkiina wata isku waara jecelkiina mid guulaysta guur laga hela Allah ka dhigo marka nin qof walba waxaan leeyahay wiilasha sanadka jacaylkan beenta aad ku sheegaysiin daaya aniga waa ka soo horjeedaa jacayl been la isku sheegayo waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo asxaabteeda idinkana iga raala noqda kaamirmaankii ayaa ka soo dhex hadlayo barnaamijka weliba asagoon wejigiisa muuqan dhaanta su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay maxaa kugu dhaliyay arrimahan in aad ka hadasho runtii jacayl wuu jiraa dunida waxa ugu muhiimsan waa jacayl waxa ugu xunna waa jacayl jacaylkaaga hadduu ku hagaago waxaa tahay qof haysta waxa dunida ugu wanaagsan balse hadduu jacaylkaaga kugu xumaado waxaa tahay qof murugo dhex fadhiyo taasi waan wada ognahay laakiin adiga shakhsiyadaada waxa kugu dhaliyay maxay ahayd mowduucan in aad ka hadasho waa iga su'aal horta aad ma san tahay maadaama ay weydiisay su'aashan waan kaaga mahadcelinayaa runtii waxa aan igu dhaliyay inaan ka hadlo fikirkan ama mowduucan wuxuu yahay yani danqasho badan aan dareemay mid ani i quseeya mid bulshada quseeya runtii waxaan leeyahay aniga ilama qurux badno waxaan ka hadlayo in la sameeyo waxa aniga dadka aan kula dardaarmi doono in la sameeyo aad aan uga soo horjeeda waana ka xumahay ciddii sameynaysana ciddii samaysay wayba samaysayba waxaan ka codsanayaa ciddii samaysay waxaan hadda aan ka hadli doono ciddii samaysay cidda ay ku samaysay in ay raaligelin hadday macquul tahay in qofku waxaas ku sameeyey ragga ahaada ama dumar ha ahaado qofkaas inuu raaligelin ka dalbado saasaan codsanayaa haddii aad isleedahayna way u adag tahay waxaan dhihi lahaa adiga dib dambe ha u sameynin kaliya waxaad samaysaa dabcan dardaaranka ana aan ku leeyahay hadday kula kulnaato mawduucan ka hadlaya waxay tahay jacayl dhab ah dareen dhab ah waxaan leeyahay walaalahayga ragga iyo dumarka ah jacaylka oo feyga ah oo aad isdhaafsanaysaan inaad iska dhaaftaan waayo wax qurux badan maahan waayo adi maanta gabadhan walaashaada haddaa ka tagto aad been u sheegto aad la goyso
hadhow markuu dareemo ama dareensiiso inaad u ogaado inaad adiga khayaantay ya maxaa ama ay ogaato inaad khayaantay maxayse samayn kartaa maxayna ku dhici kara waayo waxyaalo badan waxaan aragnay annaga dad rag iyo dumar isku jiro waxaan aragnay dad mid isdaldalay mid buundo iska soo riday mid dabaq iska soo tuuray iyo mid istoogtay intaba waa aragnay laakiin intaasba adiga mas-uulka ugu waayo waxaan leeyahay warkii aynu ku badinin cid walbo maanta joogto weliba dhalinta zamankan jooga jacaylka fiiga ah qofka walaalkaaga ama walaashaada u sheegayso ay isdhaafsanaysaan inaad iska dhaaftaan waayo qofka wuxuu ku aamin karaa inuu dhab u qaato mustaqbal inuu kula wadaago wixii markaas mustaqbalka markaad wadaagtaan wixii markaas uu ku samayn lahaa inuu qalbiga ku haysto asigoo taas ku hayo ama iyadoo taas ku haysato haddaad uga baxdo way qalbi jabaysaa rumahaantii marka aniga waan ka soo horjeedaa fikradaas aad baa uga soo horjeedaa weliba ciddii samaysayna hadda waxaan ka codsanayaa ciddii ku samaysay inay cafis weydiiso hadduu noolya ama hadday nooshahay waa hadday macquul tahay haddii aadan ay kugu adag tahayna inaad dib dambe aadan u sameynin waayo jacayl ma qurux badnaa qofka kale asagaaga inaad uga baxdo markii kow qalbiga waxaad gashataa inaad qofkaas jacayl dhab aad la qaado allahana qaado laakiin haddii ay kaa tahay gaabsi ka dhigo maantii aad baa u qaldamaysaa isqabo waxaan idinku dardaarmayaa in jacayl fayg ah la isdhaafsado waxaan leeyahay aniga kasoo horjeeda aadaan ugu xumahay cid walboo lagu sameeyey taas gabdho walboo lagu sameeyey oo wiil ku sameeyey jacaylka uga baxay oo khayaanay ani waxaan ku leeyahay haddaa i daawanayso raali noqo dhanka wiilasha anaa kaa raaligelinayo maadaama ninkaas xitaa uu ku raaligelinin because waayo ninkaas ku lugooyo rag walba saasa umalayn doontaa laakiin anaa kaa raaligelinayo dumarka wiilashana ayagana kulley waxaan leeyahay sidoo kale alisti yaan la isdhaafsanin jacayl oo feeg ah yaan la isdhaafsanin waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ballanteenu waa jacayl laba dareen